ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada xilligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay aad baa u mahadsantahay Yuusuf Carab waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnay dareenka farxadda lahaa oo ay muujiyeen dadkii kasoo qayb galay xafladda arooska dadka kasoo shaqeeyay wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada Soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen laba qodob ayaana loo badinayaa marka ugu horeyso Soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaana meel fagaara ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan waa dhif iyo naadir midda labaad xiisaha gaar ku yeesho waxay tahay reemuduga aan lagu ogeyn jiljileec markaas ayay falcelintu ugu badneed ay ku baahday labadiina si toos ayay ku saameynaysaa maxay tahay jawaabta aad bixinaysid jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan mar walba wax fiirinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato wixii xunna laga tago ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan waa xoogaa laga fiican yahay wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inaan la noqdaan wax wanaaga anigu dareenka aan muujiya maaha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya marka waxaas dhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkooda intuu ay angageen oo wax naxariis ku jirin iyo wax jacayl ah marka maxaa ku micneen kartaa adiga dareenkaas waxaan ku micneen karaa dareen farxadeed inuu yahay dadka sida khaldan uga falcelinayna waxaan ku micneen karaa inay yihiin dad aad aragtooda u liidato marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeertay wallaahi waqti aad badan buu qaatay muddo 5 sano oo ku dhow weeye waxaan kaloo oran lahaa dee qofku dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin qofkii makaa tagay makula jooga qofkii qof kale kaa doortay asagii kalsooni ma kugu qabo waxyaalo badan baa isweydiinaysaa marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid marka telefishinka SBS wuxuu fursad ku siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyay oo ilaahay calaf isugu keendara adiga iyo marwadaada marka ereygaas aad dhahayso maxaa ka mid ah ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan rag iyo dumarba dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda waliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyay ma nin doqonaa laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba waa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminaya inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh si aad ugu xunaato taabo subscribe iyo kambaleenka